iyaga ayaa isxukumayo midba midku dharaan uga soo horeeyo ayuu macallin oran jiray aad baa laysu tixgelin jiray iskalaana soo bixin dad baana soo garab qabtay oo fanka nagu gacan qabtay anaa naxariista allah sii huriya ay qoray oo dee araahda lahaa imtixaankana waxaa iga qaadayay huriyo naxariista allah siiyo cabdullaahi xamed naxariista allah siiyo iyo maxamed axmed ayaa iga qaaday imtixaanka marka iyo reer magaalo isnayn gabaygu laakiin huriyo wuxuu yidhi haddii inankan la yar habeeyo oo wax laga saxsaxo wuxuu noqon doonaa nin wax tiriyo noqon doona marka waxay ahayd adigu lixdankii markaan calanka qaadan dabayaaqeeda bilihii u dambeeyey ayay ahayd laakiin koob iyo lixdankii baan si wanaagsan ugu beeray fanka waxaanu isku mar ahayn maxamed cabdullaahi gujis maandeeqaya xitaa isku mar baan ahayn gabadha layaa magool iyo dadkii isku qoraalka ahaban markaa fanku sidan buu isaga dhisnaa waanu ka ixtiraam badnaa sidan dhexdooda hadda waxaad ii moodaa inay waxyar kala jiitaanku xibel baanahay kaleanahay waqtigaa ma aanay jiri jirin iminka waxaa noo muuqata fanku inuu badanaa siyaasadda uu ka hadlo dadku ay siyaasadda iyo arrimahaas ku hadlaan waqtigaas ma dadka ilbaxnimada iyo kala guurkii baan ayaa ahayd baan malaynayaa miyiga iyo magaalada ma arrimahaada u badnaayeen waxaad riwaayadaha lagu dhigi jiray waqtigaas adigu inta badan markaa waxaa inagu sii taallay ama isticmaalka haarihiisii ama dalalkana la haystaaba markaa la filayo inay xoroobaan marka ta'liiftu waxay u badnaan jirtay markaa halgamada u badnaan jirtay kii gabyaa wuxuu ka gabi jiray dalka kii heesaa dalku ka gabi jiray caashaq ugu yaraa had iyo goor waxay u badnayd suugaantu in lagula dagaalamo isticmaarada ku haddayna si haysto markaa nala fududaa inuu tegayo oo haddaanu tagnidaa inuu iska tegayo ay nala ahayd iyo kii markii ina haystay lasii saguutiyayey oo dee aan dhibihiisii markaa hadhin ayuu u badnaa jacaylkuna waxaa jiray yani maaragtay fadhiyo sida qaraamigii oo kale layskaga gabiyo aad iyo aad buu markaas fanku xagga qayb uga qaadanaya xagga horumarka ayaa aada loo jeclaa hadda waxaad moodaa inuu u badan yahay jacaylka ayaad hadda moodaa haddii aan riwaadaha jacayl lagu darin inaanay soconayn haddaan heesaha jacayl laga dhigin inaan la dhegaysanayn marka laakiin waagaa waxaa dadku aad ay u jeclaayeen inay wax wadani oo ninku taaliiftiisa u badiya ayaa waqtigaa dee gees kale siduu fanku ahaa il kastoo ilaa iminka sii jirto waxaa la ohan jiray waagii hore miyiga ninka heelamaalkii wuxuu noqdaa caydh oo dadku way dhowraystaano waa laga necbaayo kolkaas siday arrintu ahayd horta kelmadaasi way jirtaa oo waxay jirtaa caydha waxaa keeni jira qofka hadduu gabayada u leexdo aalaama tabcadu ah oo dawaaninba wuxuu sheegaya marka hadiyo goor dee xooluna waxay u baahnaayeen qof ku dhex jira oo la joogo oo wahaye maaragtay isaga wax kaloo dhaqaa wax kaloo dhaqaayo maskaxdu dhaqi jiro meel baa loo jeediyo shirarkaa loo yeeri jiro waa gabi jiro markaas waxa ay bay kuu sheegayaan waxa dhaqasho xumo marka inuu dhaqayo maskaxdii dadka ama xoolihiisu yihiin maskaxda ma aynan filayn marka cayd kama unan ahayn xagga garashada iyo dadka baraarujintiisa wuxuu ahaan jiray waxay odhan jireen madawir xoolaha ma dhaqday odhan jiray ama ciyaaro ama had iyo goor waxay odhan jireen waa kay wax ma dhaqda ahaa mudawirka kamana ayna maarmi jirin markay ay shir leeyihiin ama ay noo hadal bay odhan jireen taa kama ayna fikiri jirin dee ninku marka laba hawlood isku kari maayo waagii horena waxaynu ahayn sidan hadda marata in dawladaha horumaray ay yihiin ayaa dhaqanka soomaaliga ahaa ninku waxbuu tabcan jiray maaha nin xoola uun iska siin jiray afar jirba hadduu gaalo xoola raac buu bilaabi jiray sidaasuu ku barbaari jiray sida adiga ha raaco lo'da ha raaco geela ha raaco beer ha dhaamiyo waxaa qof xoogsataa buu ahaa muu lahayn dadkan hadda isagii oo soddon jira howl odhanaya mise saacihii baan u baahnahay kolku berri feer baanu qaadanay dowla maxaa meenan shilin aan siinin aan noqono muunan ahayn qofku wuxuu ahaa waadu ahaa waraabida laad dadku kaga baxaa soddon dadka haddii ma koraan
waxa weeye kama koraan dadka way dhibaanan hadduu guursado oo caruur uu yeesho wuxuu doonaya abiyi hooyadiina hayaan haddii xaas la yeesho ama gabadha ama wiilku waxay doonay in waalidkood hayo marka ma ilahayn dadka wax isku haleynaya dadku waxa ahaan dad shaqaysta oo shaqadiisa wax lagu siiyo dadka gabya waxa yar moodaa in shaqada aad xagga gabiga ma inuu fiicnayna isaga waxaan ku weydiiyey waxaad soo qaaday ood waqtigiina gasheen hablo ka mid a hablaha fanaaniinta waaweyn ee imka soomaalida ku faanto waqtigaa hablaha sidee loo soo loo arkayay fanka gal horta waxaa la moodi jiray fanka qofkii galaad in shaqeeya rag iyo dumarba anaga caydeeda waxaad leedahay qof reerkoodii ka farabaxay waxbaa ku gubaya waxa hadduu qofku matalan qofbaa orda inuu ordo ugu dooni qofbaa gabya inuu gabyo ugu dooni qofbaa hadla inuu hadla ugu dooni yani qofku waxa uu doonayo had iyo goor si kastoo looga celiyo wuu sameeyaa marka had iyo goor waxaa fanka ku biyir jiray dad la yidhahda xaaliya oo aan ogolayn gacanta waaridka gabadh markaa gacanta waaridka ogol dee mayna geli jirin fanka intaa waxaad yar moodaa in laga naxay oo caruuro badan qabrigii mayna tarmisarunta saasaad garanaysaa inaan raalli laga ahaan jirin haddana naxayntooda dadkaysaa inay dadku waxaad moodaa inay wayna u baahan yihiin yaanay necbihi marka waagaa maxaa wada malaynte bal kama fikirayaan kolkaanu ciyaari jirnay hablaha waa naloo soo dareerin jiray dibadaanu ciyaarta ku qabsan jirnay habluhu waa noo mari jireen waana rag iyo dumarku way wada ciyaari jireen bal taana ma aynan diidi jirin tan magaaliga ana way diidi jireen ha waxaad moodaa inay magaalada dirir ahaayeen inaynan ahayn falla dirir